mahmaah ingiriisi ayaa haddaba waxay leedahay east and west home is the best. dunidan ad arkayso meel walba oo aad tagtaba marna ma helaysid meel la mid ah amaba kaaga fiican waddankii aad ku dhalatay ee aad u dhalatay kuna soo barbaartay. waddanku waxa uu leeyahay qiimo, laakiin waa marka ay dadkiisu garanayaan. waxaa jira dad badan oo dunidan ku nool kuwaasoo dhulka ay ku nool yihiin uu aad u yaryahay, hase yeeshee ay ku weyn tahay waddaniyadda. innagu soomaali ahaan ilaahaygiina abuurtay waa uu noo gargaaray, waayo waxa uu nagu beeray meel istaraatiijiyad ah, khayraad badan. sidoo kalena waxaanu leenahay xeebta labaad ee ugu dheer qaaradda africa, dhulbeereed aad u weyn, webiyo waaweyn sida webiga jubba iyo shabeelle. sidoo kalena waddankeenna waxaa ka buuxa macdan, shidaal iyo wax walboo loo baahdaba. weli dadkeennu waxay u dhimanayaan gaajo, baahi, abaaro, dagaalo ahli ah. waxaasoo dhan waxaa keenaya waa tawfiiq xumada. haddii dadkeennan tiradiisa lagu sheego 10 ilaa 15 milyan haystana dhulkan ay weli baahi u dhimanayaan, su-aasha meesha ku jirtaa waxay tahay yaa biri ku noolaan doonaa khayraadka halkan ceegaaga, yaase loogu talagalay. haddaba ogaada in adduunka ay ku nool yihiin dad dhulkoodii ay duulal kala qaateen oo weli ilaa haatan silac iyo saxariir ku nool. sidoo kalena dhagxaan kula dirira dad hub haysta oo mar hore dhulkooda ay iyaga kusoo dhawaysteen. inta aan dhaxalkeenna aabe la boobin, dhulkeennuna aanu dayac u noqon dadka laga yaabe inaan maanta u aragno inay yihiin masaakiin, hase yeeshee beri nagu dhul ballaarsan kara, qabsan kara waddankeenna, tiri ahaanna naga badan, isagala soo qulqulaya soomaaliya maadaama xuduudaheennu ay furan yihiin. inta aanay dadkaas nagu dhex barbaarin, dhulkana ay naga qaadan, walaalayaal waxaan nahay soomaali, hal qoys. aan isu dhimrinno, isu naxno, ogaanana in aan marna ishurayn. kulanti waxaanoo wanaagsan khiyaarta hawada naga daawanaysaa idilhaantiinba meel walbo aad joogtaan iyo si walbo aad noo daawanaysaan. halkani waa youtube-ka liban kulo. waxaa halkan ila jooga islamarkaana aan waraysi kooban kaga qaadi doonaa cabdikariin cumar maxamuud oo isagu ku magac dheer cabdikariin sheekeeye. cabdikariin waa wiil dhalinyaro ah oo soomaali ah, waxaanu ku nool yahay magaalada jidda. waa makaanig khibrad fiican u leh samaynta gawaarida. waxaanu ka howlgalaa warshad weyn oo loogu talagalay in dib loogu dayactiro gawaarida ay ciladuhu soo taabteen. haddaba waxaan rabaa inaan kala sheekaysto cabdikariin qisada ku aadan dhibaatada ay leedahay tahriibta, maadaama uu isagu goor sii horeysaba halkan uu kusoo gaaray waddadaasi. cabdikariin kusoo dhawow barnaamijka. waan ku dhawahay saaxiibkii qaaligan liban kulow. walaalkii waan ku dhawahay 100% inaan kula qaato caawada tan meeshaan inaan waraysi ku wada qaadano waan jeclahay. noo gudagal waraysigaaga. cabdikariin adoo codkaaga kor u qaadaya, waxaan rabaa goormay ahayd markii kugu horreysay aad soomaaliya ka soo baxday? waxay ahayday xilligii adiga 2019. waa gartay. markaa magaalada xamar ayaad ka soo tagtay, xageed u socotay? waxaan u socday dhankan iyo sacuudi carabiya inaan soo aado. inta aadan sacuudiga soo gaarin ka hor, soomaaliya dhexdeeda laftirkeeda waa cilad kale, yani waxaan ka wadaa dariiq kale oo dheer oo lasoo maro. waxaa jira magaalooyin lasoo beegsado. adigu markaad xamar kasoo tagtay, magaalada aad beegsanaysay si aad doon usoo korto magaaladay ahayd? awalan horto waxaan kasoo baxay gaar ahaan muqdisho. markaan kasoo baxay waxaan nimidnay ankoo qabaa hadii ciyaal badan gaar ahaan waxaan nimidnay meesha la yihaaho bakaaro. alxamdulilah baabuuraan kasoo raacnay, waxaan ku nimidnay meesha la yihaaho gaalkacyo. haddana baabuur kale kasoo raacnay ilaahay markiis waxaan ku nimidnay meesha la yihaaho boosaaso. waa gartay. ma ii sheegi kartaa inta maalmood ay idinku qaadatay safarkiinii marka laga soo bilaabo magaalada muqdisho ilaa aad gaarteen magaalada boosaaso? intee maalmood ayaad safrayseen? wallaahi 3 maalmood. 3 maalmood kadib magaalada boosaasaad timid. dabcan ujeedadadan waxay ahayd inaad tahriibto. ujeedkii waa inaan tahriibo. okay, wax ma ii sheegi kartaa bal cidda markaad tagtay magaalada boosaaso kuu geysay qolada wax tahriibiya? wallahi awalan waxaa kala xiriiraysaa horta intaadna horta boosaaso aadna imaan gaalkacyo. markaad joogtid ileen gaalkacyo adigaa maskaxda iska keenayo, laakiin haddaa gaalkacyo timaadid marbo dadka waxaa yani tahriibiya lagugu hagayaa. dadkaasaa markaas baabuur kuusoo dirsanayo boosaaso ku yahayo. waa gartay. markay boosaasidii keeneen cabdikariin, bal si dadkana daawanaya ay ra'yi fiican uga helaan, ma aqal bay idin geeyeen? ma magaalada boosaaso laydinku dhexaayay mise meel buuraha oo magaalada dibaddeeda laydin geeyay? intee cishoosa ku jirta meeshaas haddii laydin geeyay?
wallahi waxaan ku jirnay meel adiga magaalada dhexdeeda kamid ah laakiin oo guryo qarsana oon ka bixi karin haddaad biriga sheyga u baahato gurigaas aad usoo gasho leen xilliga aad yani doonta aad raacaysa maahan xilli kale aadna kasoo baxayn. waa gartay intee maalmood meesha isku jirteen marka qafligaas? wallahi qafligaas waxaan ku jirnay adiga xawaali 15 يوم. waa gartay 15kaas maalmood yaa cuntadiina qabay meeshaad seexanayseen nadaafadeedu sidee ahayd? wallahi meeshaan seexanayn nadaafadeeda wallahi wax la hadda laga sheekay karo ma ahayn. wallahi meel 100% iska liidato oo guri tahriiba oo xaalkeedu ilaahay iska ogyahay oo wallahi biriga haddaa caawo casho fiican aad ku seexatid inaan subaxi aadna quraac aan helayn ay hubantaa wallahi. waa gartay marka laga soo tago qoladan muqallasiinta ah ee meesha idinku xariisatay dalaaliinta ah Puntland waxaa ka jira dowlad goboleed dabcan waxay leedahay ciidamo booliiska Puntland miyaanay marna idinka warhelin inaad tihiin dad tahriiba oo xerada lagu xariistay lana rabo in doon la saaro? maya wallahi sababtay hadday dareemaanbo meeshaasi qof sii joogi karaysa ma leh wallahi. waa gartay waxaad iga sheekaysaa kadib markii aad halkaas ka baxdeen xaggay doonteeda ka saareen? ma magaalada afkeeda ma tuulo gooni ah xaggee meesha laga soo saaray doonta? wallahi doontani horta meesha nagala soo saaray waxay eedeedi meelaan xaafadaas iyo baddaas ayna isku dheereen wax loo socahay xawaali 15 daqiiqa. waa gartay markii doonta laydin soo saaray dadka qaar waxay sheegaan in dadka lagu jirdilo inta ay doonta saaran yihiin oo cadaab fara badan loo geysto, hadday tahay jirdil, hadday tahay in qaar nool laftirkooda mararka qaar la sheegay in badda lagu tuuro. adigu bal qisadaadii noogu sheekay, ma aragtay intaad saarnayd doonta cid lagu xadgudbayo, qof la dilayo amaba hadday noqoto la tuuray? wallahi horta qisada doonta way noocyo badan tahay ma xilliga hore ama saacada xilliga aniga hadda soo baxaynay. wallahi horta xilliga anigu hadda soo baxaynay may ayna jirin yani qof beriga alle lehe la dilaayo amba si xun loo dirjileehayo amba yani cadiifad gooniya la saarayo. laakiin waxaa jirto inaa yani baddaasiti aad dhaqdhaqaaqaaga uuna bada karin xilligaas meesha lagu fadhiisay aad fadhiinayso ilaa ma yani laga gaarayo yoomkii waqtigii laga deganayo. okay, dadka doonta idinku kaxaynayay ma hubaysnaayeen oo dad hub wato oo sidoo kalena ku hubaysan faasas budad sida la sheego iyo qoryaha dadka lagu dili karo miyay ahaayeen mise dad caadi ah say u yeeleen? wallahi waa hubaysan yihiin sababtay haddayna hubaysnayn maba hagi karaa mahayno sababtay dad badan oo dhalinyaraha meesha saaran waa la isku xadgudbi karaa ajaani Ethiopian iyo Soomaali yani dad dhowr noocyada ah meesha isla saaran. okay, marka muhiimadaas doonta laftigeeda waxaa la sheegaa marka la wada saaryahay inay jirto qayb hoose oo qofka la cadaabay la gelinayo oo howd gol ma jirtaa mise ka badbadis? way jirtaa yani dhan hoose iyo dhan koray leedahay. ma gashay adiga ma lagu geliyay? wallahi horta meeshaas hoose ilaahay aniga iguma aadin alxamdulilah. laakiin dad kusoo aada way jiraan oo wax duruuf yani aan loo adkeysan karin kusoo maraysa sababtay tahay halahaas doontaas la saaran yahay adiga labadaas yoom amba yoomkaas la saaran yahay wallahi meeshaad ku jiraysaa neeftu iyo hawadu waa dheeb. waa gartay waxaan qiyaasayaa cabdikariim in intii aad saarneedeen doontaas dabcan inay noqon karto 2 maalmood iyo maalin barkeed oo kale yani bal inta doonta dusheeda la saaran yahay wax cunto miyaa jiray oo qolada doonta ay dadka siinaysay mise idinkaa horay usii watay cuntadeena? akiid yani anukaa hore usoo qaadayno qof wax sii haysa malaha. maxaa kamid ah cuntada wadateen marka? cuntada wadano waxaa kamid ah awalan waa biyo, waa midda labaad oo timir, wax ka dheer ma wadan wallahi. waa gartay haddii marka aad gudubteen oo aad ilaahay idin nabadgeeyey oo aad dibadda tagteen waddanka yaman xeebta ka daadateen bal halkii ugu horreysay aad tagteen iyo meesha ladinku qaabil xaggee? wallahi xilkii nagu horreeyo oon tagna waxay eeday oo muhiimadeena ka bilaabataba haddii bad aad kasoo degatid oo awalan aad dhulka aad timaadid alxamdulilah horto nafsadaada muhiimka ku ah hadday adoo kugu jirta aad soo degatay waa ilaahay mahadiibo. midda labaad waxaan imaanayo dad oo yamana oo maasha allah yani wato shareecado ku dhahayaan soomaaligaan la hadal soomaalidii ku dhiibaan soomaalida la sii hadlaysaa soomaalida hadaa la hadishid markaas adii almuhiim soomaaliga anaa isfahmaysiin wuxuu ku leeyahay walaale anaa meel ku geynayo iyo imaaw waa kaya xaaladiidu waa noocaas noocaas aha iyo imaaw. waa gartay soomaaliga lagu siinayo nambarkiisa ma mid soomaalinimo dadka waxay ugu qabanayaan mise waa dulaal rabo inuu hadhow ka faa'iido daabulaada dadka halka u ka helay? wallahi waa dulaal qof aan yani dan kugu qabin maba ku qaadaysaba meeshaas qof walba danteeda kaa dhex aragto waa muhiimadu
midda labaad waxaa waaye haddii meeshaas lagu geeyo gurigaas lagu geeyo maalintaa tagtid ilaa maalintaa gurigaasiit lagaa sii wadaayo oo dalaalka ah lacagaa kugu socoto halahaas lagu wado oo yamankaas kusoo qaadayo lacag waaye hadaa guriga tagtid lacag waaye adiga kulli xaaja yani lacag waaye. Okay, xeebtaad kasoo degteen ninkaana lagula hadalsiiyey nin dabcan yamana ninkan soomaaliga kula hadalsiiyey. Okay, soomaaliga xaguu joogaa waa xageysta guriga lagu geeyey magaalada ku yaala yaman? wallahi waa cataq. cataq yani gobolka Shabwa. Okay, markii aad haddaba cataq tagteen qofkaas rabay inuu bal idinka kor dulaalo si uu gawaari idin saaro hadhow lacagna idinkaga helo inkastoo idin caawinayay haddana maslaxada meesha ku jirtay qaabilaadiisa siday ahayd? cunto ma idiin sii jiray, ma idiin soo dhaweeyey, jiif fiican ma heshay? wallahi jiif hadda horta beriga aan isleedahay qof muhiimadeedii heshay maan helaysid sababtay tahay waa meesha waa guri yani iska xaaladiisa xaalay iska tahay oo dad ay joogaana oo ninkuba 24 saaca uu guriga dhex rogi macno dad isiga oo uga tagahayo. wallahi ini oo xaalad beriga hadda lasoo koobi kara ma ahin, waa xaalad 100% iska adkeeday. cuntadu waa adag tahay, biyuhu waa adag yihiin. wallahi waxaan ka sheego qof ma kula tali lahayn. waa garta dhinaca kale waxaa jira in dadka mararka qaar ay sheegaan in dadka dulaaliyiinta ah kuwooda weliba yaman jooga marka ay dadka la soo wareegaan oo inay jiraan tacadiyo ay geystaan weliba hadday jiraan dumar oo kale in kufsi loo geysto dumarkaas, in gabadhii duruuf qabsata oo cidna dibadda wax ugu soo dirin oo kale la adeegsado lagu shaqaysto meel loo isaga haysto. waxyaabaha noocaas oo kale wax ma ka soo aragta adiga? wallahi ani xilligan joogay waxaan arkay ugu yaabka badnaay horto waxay ahaaday gabar maasha allah meeshii adiga duruuf adag ay ku qabsatay 100%. waxaa kamid ahay gabadhii waxay dhahday yani aniga hadda xilligan lacag maan haysti waana rabaa inaan yani dadkan inaan ka haro rakaabka ma jecli maxaa ka leedahay walaalaheeyo. wallahi ninka haribka ula tagna waxaa dhahnay oo gabadhaaneti way ka caddahay xaaladeeda 100% waa qof yani dan hayso dunidana danta la iskuma naco marka inaad yani gabadhaan noo deysid inteena kalena aan lacagta naga qaadid ayaan wadanaa. almiin wuxuu yidhi yani ninka go-aan maad leydin, go-aanku waa maskaxdeeda. gabadha hadday lacag haynin gurigaana ii joogaysaa, gurigaanayna ii hagaajinaysaa, dadkii imaada ii soo dhaweyne meeshaana ka shaqaysay. iyadu ma ku qanacsaneed marka sidaas? maagayna ku qanacsaneen laakiin dantaa bada maahayn. marka waa run hadalka ama wararka sheegaya in dadka soomaalida ah ee dulaalnimada ka shaqaysta ee magaalooyinka waaweyn ee yaman jooga dadka masaakiinta markay badda kasoo tallaabaan ciddii aan waxba haysan inay gumaystaan ku xadgudbaan, waa wax jira soo ma? waa wax jiro. Okay, tan kale waxaan rabaa bal intii aad joogtay magaaladaas cataq waxyaabihii kaloo kugu yaabka badnaa oo ma aad isdhihi karto oo ka sheekey kartaa maxaa kamid ah? wallahi intaa joogay waxaa kamid ahay yani waxaan arkay ankoo ahayn adiga 3 Soomaaliya ayaa waxaan aragna banaanka usoo baxnay marka dukaamanka wax laga soo gadgadanayo maalintii dharka aan soo gadgadayna. almuhiim waxaa dhacday marka yani Ethiopian badan oo maasha allah yani leeyahay adiga xawaali yani 30 dhan oo isla socotay iyo Soomaaliya isdagaaleen. dagaalka haduu bilowday ala tool yani waxaaba laga bilaabay dumarkii. wallahi waxaa arkay iyadoo yani ragga Soomaaliya iyadoo dumarkii meeshaan lagu halaagayo ujeedada Ethiopian ay halaagayaan. wallahi dad badan oo qof walba madaxeeda yani ka jeesatay danaheeda kasii raacatay. يعني iyadoo dumar Soomaali ah lagu xadgudbayo dad Soomaalina ay halkaas joogaan cidda ku xadgudbaysan ay tahay Ethiopian iyo Yemen sidaan halka loo fahmi karo ayaa dadkii Soomaalida halkii ay gacan ka geysan lahaayeen waxay door bideen inay isha ka daawadaan. sababtay tahay yani way badnaayeen dadkan Soomaalidana waxaa been aninkoo 3 iyo 9 qofood oo meesha ku ka adeegaysa xilligaasiti wallahi qof walba isha ka dayday. marka gabdhihii sidaas loogu xadgudbay weliba dadkaas adiga aad kamid tahay waad arkaysan sidii wax u dhacayeen. waa arkayni wallahi waxaan ka bedeli karnaa ma leeyahay xilligaasiti. waa gartay markii haddaba masiibadaas ay dhacday kadib dib ma isu aragteen gabdhihii oo ma wareysteen bal qaabka ay wax u dhaceen? wallahi dib miyaan isku arag sababtay tahay xilligaasiti oo isla maalintaas saafara ka sii ayo kasoo safray khalaas. waa gartay okay sidoo kale markii haddaba aad joogtay magaaladaas dabcan intaad arkaysay
way badnaan karaan soomaali badan waad arki karaysay dumarka soomaalida ah weliba gabdhaha kuwooda yaryarka ah ma arkaysay iyagu oo ma ka qayb ahaayeen dadka musiibada soo taabatay ee waddanka kasoo barakacay ee iska yaacaya wallahi way ka mid ahaayeen rag iyo dumar meeshaas siiti laguma kala yaraysan 100% oo waa la wada yaacay dadkuna yacni tahriibkaasi uun xilligaas adiga lagu wada jiro gabarna meesha imayna ku yareen ragna mauna ku yareen waa gartay tirada gabdhaha markaad fiiriso iyo wiilasha haddaad soo barbar dhigto gabdhuhu ma tiro badan oo 50% la dhihi karay ahaayeen mise way ka yareen wallahi ini oo markaa imiday meesha la yiraaho oo xuduudkan oo laga soo galaayo wallahi waxaa isdhihi kartaa 100% yani gabdhaha badan waa gartay intii haddaba meeshaasaad joogtay yani weli dareen ahaan ma isdareysiisay bal in dad soomaaliya halkan ku dhibaataysan yihiin ayna fiicnaan lahayd haddiiba ay jiri karaan dad kale oo soomaali ah oo dibadaha jira ama dalka gudihiisa sidoo kale inay bal fiicnaan lahayd inay wax ka qabtaan amaba joojiyaan ka hortagaan sidii tahriibtan loo ciribtiri lahaa maadaama dadkeenu ay sidaa meel walba ugu dayacan yihiin wallahi tahriibtan jidkan haddii qof yani ciribtiri karto ambeysi ahayn yani horjoogin suubi karto wallahi hadday jirto hala suubi aan dhihi lahay sababtay tahay yani jidka hadda lasoo maraayo wallahi jid ma ahayn darxumada taalo duruufta taalo tahriibka sida dadka loola dhaqmaayo dadka kaasoo horeysay ku galayaan yani tacdiyaadka wallahi ma yaro 100% waxa la dhihi kara berigaa ha lagu soo noqdana ma ahayn waa garta sheekay waxaa tahay wiil dhalinyaro ah dabcan waxaadna ku nooleed magaalada xamar oo waxaad heli kartay fursad waxbarasho ah oo laga yaabay xataa inaad jaamacad ka qalin jibiso oo aad wax barato bal maxaa kugu kalifay adoo heli kara inaad wax barato waddankaagiina jooga inaad naftaada khatar soo geliso oo aad noloshaada meel ka soo dhigto wallahi ni horta waxyaalaha kamid ah waxaa waaye sababtay tahay dalkeena haddoo aragtay duruufihiisu inay iska adag yihiin dowladda ay iska tahay yani xaalal wallahi alcadiim waxaa horta aan ka dhihi karaa sababteed horta inkastoo horta dhalinyaro la wadayahay oo qof walbaba yani tahriib haddii loo sheego tahriibkaas dalkaas shisheeye damcaas uu soo wada gelaayo haddale wallahi alcadiim 100% waxaan dhihi lahaa yani soomaaliya haddii ay ahaaleed beriga dowladdeena ay dowlad dhisan maasha allah sidii yani dowladaha qaar oo kale 100% wallahi ma jeclaa lahay inaan dalkii iga soo tago laakiin jirta hadda waxaad tahay mechanic oo ka shaqaysta garaash gawaarida lagu dayactiro bal haddiiba lacalla ay dhici lahayd in haddii cidi ay kaa dalbato bal inaad walaalahaaga kale ee dhalinyarada ah soomaaliya ee soo barakacaya iyaga oo heli kara fursado shaqo waxbarasho weliba nabdoon kuna heli kara gudaha waddankooda bal maxaa fariin ah oo aad hawada u mari lahayd wallahi waxaa fariin hawada u mari lahay inay yani qof walbaba dalkeeda ay joogto dalkaaga ahayn waa dareen ku joog wallahi marka 100% waxaan leeyahay nin walbo dalkaaga wax ka qabso dalkaaga aa wax ku tahay wallahi calanka soomaaliya meeluu ku taagan yahay haddaad joogtid nafisaa haysataa iyo xorriyada dareemaysaa laakiin maalintaa dal shisheeye timaadid aa ogaahay inay tahay yani dal shisheeye wax micnaa ayna ku sugnayn walaal haddiiba aadna daawanaysaa muuqaalkan uu meel un kaa soo gaaro fadlan ha soo tahriibin waayo tahriibku waa aafo waa musiibo waxaa jira 10 kun oo soomaali ah kuwaasoo ahaa dhalinyaro mar usoo bixi lahayd waddankeena soomaaliya gebi ahaantoodna waxa ay casho u noqdeen kalluunka badaha badda cas iyo weliba badda mediterraneanka sidoo kale waxaa jira kuwo iyaga oo nool weli aan cirib iyo raad meesha ay dhigeen la garanay wararka qaarna ay sheegayaan inay yihiin dad ay dad kale lugaha ka xirteen dumar iyo ragba kuwaasoo lagu la-yahay dhulka lama degaanada ah tahriibku waa aafo waxa aan runtii kaa codsanayaa haddiiba ay suuragal tahay inaad videogan la wadaagto walaalaheena kale si ugu yaraa dadkeennu ay ka badbaadaan musiibooyinkan aan rabbaaniga ahayn ee aan inagu gacmaheenna ku keensanay ugu dambeyntii adiga oo mahadsan kuna mahadsan inaad barnaamijkan igala qayb gashay waxa ugu dambeyn bal niyadaada ka guuxaya ee aad is leedahay gaarsii walaalahada soomaaliyeed maxay tahay wallahi aniga ugu dambeyn wixii niyadeyda ka guuxaya waxaa waaye inaan dadkeena soomaaliyeed aan wax ka qabsano inaan dalkeena dhisno inaan yani keena danyar aan garab qabano
kii liito aan yacni waxaan ku saacidi karna aan ku saacidno, ninkaan ku saacidi karto war, ninkaan ku saacidi karto xoog, ninkii aad ku saacidi karto wax dheef. nin walba wallaahi qof walbaba oo Soomaali ah waxay yacni qofka kale walaalkeeda ay ku saacidi karto inay ku saacidaan jeclaan lahay 100% in laysa saacido oon dantaa la isku fiirsan. mahmaah ingiriisi ayaa haddaba waxay leedahay east and west, home is the best. dunidanaad arkayso meel walba oo aad tagtaba marna ma helaysid meel la mid ah amaba kaaga fiican waddankii aad ku dhalatay ee aad u dhalatay kuna soo barbaartay. waddanku waxa uu leeyahay qiimo, laakiin waa marka ay dadkiisu garanayaan. waxaa jira dad badan oo dunidan ku nool kuwaasoo dhulka ay ku nool yihiin uu aad u yaryahay, hase yeeshee ay ku weyn tahay waddaniyadda. innagu Soomaali ahaan ilaahaygiina abuurtay waa uu noo gargaaray, waayo waxa uu nagu beeray meel istaraatiijiyad ah, khayraad badan. sidoo kalena waxaanu leenahay xeebta labaad ee ugu dheer qaaradda Afrika, dhulbeereed aad u weyn, webiyo waaweyn sida webiga Jubba iyo Shabeelle. sidoo kalena waddankeenna waxaa ka buuxa macdan, shidaal iyo wax walboo loo baahdaba. weli dadkeennu waxay u dhimanayaan gaajo, baahi, abaaro, dagaalo ahli ah. waxaasoo dhan waxaa keenaya waa tawfiiq xumada. haddii dadkeennan tiradiisa lagu sheego 10 ilaa 15 milyan haystana dhulkan ay weli baahi u dhimanayaan, su-aasha meesha ku jirtaa waxay tahay yaa biri ku noolaan doona khayraadka halkan ceegaaga, yaase loogu talagalay. haddaba ogaada in adduunka ay ku nool yihiin dad dhulkoodii ay dulal kala qaateen oo weli ilaa haatan silac iyo saxariir ku nool. sidoo kalena dhagxaan kula dirira dad hub haysta oo mar hore dhulkooda ay iyaga kusoo dhawaysteen. inta aan dhaxalkeenna aabe la boobin, dhulkeennuna aanu dayac u noqon, dadka laga yaabee inaan maanta u aragno inay yihiin masaakiin, hase yeeshee beri nagu dhul ballaarsan kara, qabsan kara waddankeenna, tiri ahaanna naga badan, isagana soo qulqulaya Soomaaliya maadaama xuduudaheennu ay furan yihiin. inta aanay dadkaas nagu dhex barbaarin, dhulkana ay naga qaadan, walaalayaal waxaan nahay Soomaali, hal qoys, aan isu dhimrinno, isu naxno, ogaanana in aan marna ishurayn. aad baad u mahadsantihiin, waana ku mahadsantihiin daawashada videogan. fadlan videogan haddii uu kusoo gaaro waxaan kaa codsanaynaa inaad like noo saarto, commenti iyo araha waxaad qabtana aad hoos noogu reebto. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahayna fadlan youtube-ka subscribe noo saar. haddii aad hore noola joogtana aad baanu kugu mahad celinaynaa. tan iyo intaan dib dambe barnaamijkan oo kale ah mar kale hawada ugu kulmi doono, aniga iyo Mr. Sheekayaba waxaanu idin leenahay fi amaan illah. mac salaama.